intaasi waa qodobadii u door corona warka haatan se isagii fidsan madaxweynaha dawladda ku meel gaarka mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo waftigii ballaadhnaa ee uu hogaaminaya ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay garoonka caanka ee Aadan Cadde International Airport ee magaalada Muqdisho kadib markii ay ku soo guriya noqdeen caasimadda waddanka Soomaaliya iyagoo ka qayb galay shirkii Turkiga ee Soomaaliya loo qabtay iyo waliba shirar kale oo iyagana lagu qabtay waddanka Tanzania faahfaahinta warkaas waxa inoo haya wariyaashayada magaalada Muqdisho ee waddanka Soomaaliya madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo safarkiisa ku weheliyeen mas'uuliyiin uu kamid yahay ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha wasiirka gaashaandhigga iyo wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda ku meel gaarka ee Soomaaliya ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho iyadoo halkaasina ay si weyn ugu soo dhaweeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada mas'uuliyiin uu horkacay kusimaha ra'iisul wasaaraha wasiirka ganacsiga mudane Cabdiwahaab Ugaas Xuseen Ugaas Khaliif iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda ku meel gaarka Soomaaliya iyo kooxda Bambeyda ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa si kooban warbaahinta uga warbixiyay socdaaladii uu ku soo maray dalalka uu dhawaan dalka dibadiisa uga baxay madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa maray warbaahintu wax ka weydiisay socdaalkii uu ku soo maray dalka Tanzania ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan waxyaabo ay dawladda Tanzania iyo dawladda ku meel gaarka Soomaaliya iska kaashanayaan oo